بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan rabaa inaan fariin u diro walaalaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Qardha ee dhibaatadu ay soo gaartay arrimaha disasterka ama dhibaatada dabiiciga ah ee roobabka uu Ilaahay keenay. hase yeeshee muxuu ahay dadkii magaalada Qardha deganay ee dhibaatadu ka soo gaartay, hantida badan ay ku burburtay, dad ay ku dhinteen, qaar la la'yahay, dhibaato deegaankana iyo wadooyinkii idaarihii iyo guryihii magaalada ku yiiloo dhanna dhibaato xoog leh ay gaartay. walaalahaas waa u tacsiyeynayaa. intii dhimatay Allah u naxariisto, inta maqanna muxuu ahay ay noloshooda muxuu ayagoo nool Allah soo fududeeyo in la helo. deegaanka dhibaato intii ku hanti beeshay hantidoodu ay dhamaatana waxaan leeyahay bedelkeedu khayr qaba Ilaahay ha idin siiyo. aad iyo aad ayaan arintaasi runtii murugo ay noogu abuurtay markaan aragnay sawirada laga soo qaaday deegaanka degmada Qardha. runtii aad iyo aad ayaa looga wada xumaaday. waxaan leenahay Ilaahay bedelkeeda wixii idin dhaafay, Ilaahay bedelkeedu khayr qaba Allah idin siiyo. waxaan u tacsiyeynayaa dadka reer Qardho, degmada Qardho degan ee dhibaatadu ay gaartay si gaar ah. guud ahaanna waxaan u tacsiyeynayaa dadka reer Puntland oo dhan, hoggaanka iyo mas'uuliyiinta madaxda reer Puntland saakay hiiradii horeba ku kalahay ee meeshaas hawsha badan ka qabtay. ayagana waa bogaadinayaa madaxweynaha Puntland saakay ku kalahay deegaankaas iyo mas'uuliyiinta iyo madaxda kale iyo shacabka sharafta badan ee u wada gurmaday walaalahaas. khayr badan iyo muxuu ahaay Ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo. madaxda mas'uuliyadeedii gudatayna way ku ammaanan tahay. intaas kadib waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, iyadoo lagu jiro bishii khayrka badneed ee Ramadaan, walaalahaas dhibaatada iyo culayska ay gaartay, waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan ugu baaqo guud ahaan in gurmad lala gaaro. inta deegaankaas ka dhowna inay u gurmato, inta deegaanka meel dheer meelo fogfog dalka gudihiisa iyo dibadda jirtana in ay wax allaalaya wixii ay kari karaan ay la soo gaaraan, oo ay walaalahaas muxuu ahay la garab istaago waqtiga xanuunka badan ee la jiro. qalbigeenna iyo caqligeenna iyo maskaxdeenna iyo dareenkeennaba wuxuu la jiraa dadka reer Qardha maanta ee dhibaatadu gaartay. waxaan leenahay samir iyo iimaan, bedelkeeda oo khayr qaba wixii idin dhaafay. annaguna waa idinla jirnaa wixii aan kari karno. wixii halaabay bedelkoodii kari ma karno, laakiin wixii dadaal ah ee ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan annaga mas'uuliyiinta ana dhinaciina ayaan taaganahay haddii alla yiraahdo. sidoo kale waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka ah inay arintaasi gurmad degdeg ah ay ka muujiso. dhibaato badan ayaa dalka ka jirta. xanuunka corona ayaa awalba dalku dhibaato badan ku hayay, haddana tani ay ku soo korortay. inkastoo deegaankaasi inta badan deegaan caafimaad qaba uu ahaa, dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa in ay dadkaasi walaalaha ah gurmad la gaarto. sidoo kale waxaan baaq u jeedinayaa lana hadlay qaarkood hay-adaha samafalka caalamka oo ay u horeyso Jamciyadda Qurumaha ka dhexeyso iyo hay-adaha samafalka oo dhan ee caalamiga ah inay ayaguna ay gurmad degdeg ah lala gaaro dadkaas walaalaha ah muxuu ahay oo dhibaatadu ay soo gaartay. walaalayaal, Ilaahay muxuu ahay bedelkeedu khayr qaba Allah idin siiyo. dhibaato kalena Ilaahay idinma keeno. dhammaanna guud ahaan dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan bisha Ramadaan fadligeeda iyo waxaan Ilaahay uga baryayaa in uu Ilaahay ka yareeyo dhibaatooyinka. badbaadada Ilaahay ayaan weligan kusoo hoos jirnay. duruufo gaar ahaan annagoo ku sugan ayaa Ilaahay aafooyinka masiibooyinka naga badbaadin jiray, naga yareeyey, naga muxuu ahaay badbaadiyey guud ahaantoodba. marka haddana inaan Ilaahay wada barino ayaan soo jeedinayaa in Ilaahay naga badbaadiyo. hadday tahay cudur, hadday tahay nimcada Ilaahay keeno oo marmarka qaarkood hadday badato dhibaato geysatay. roobka xalay iyo shalay daa Qardho uu ka mid yahay. Ilaahay aan baryaynaa dhammaanteen aan alla u noqono. bisha Ramadaan ha lees cafiyo, ha leesu naxariisto. dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan aad iyo aad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.